gacanta dhig wariyaa khaayo waa ku aqaan booliisa tahay dhig haye dhig waa isogni haye dhig guuleed warki George ma kasteen marka dadkii waxoodana waa dhamaysteen mana dhimanaysaan hadda waxa la rabaa in la dhinto haddii nimankii yimaadeen nagula soo buriyay inay go'ayaan ma ogdiin oo nala qabsanay inta aadi doontaan marka giridhi hay ninkan soo giridhi ma ya giridhi la hurmi ma xaq u bax qowma ku dhacday maxaa helay giridhi wuxuu ku gooy luuga ku gooy soo sin boring leeyin gooy meeqa jeeran askar ku qoray sheek hadal intii askar hada adiga ay soo qoran ninkan magaciisa giridhi maxaa la dhahaa giridhi jaamac saciid giridhi la dhahaa ninkan ku baraa generaal giridhi means la hungurwingu ingiriis ha ninkan marka magacan meesha uga yimid idin sheega ninkan askari uu rabay 20 jir oo igu yimid nilal ka saareer bahashi ah yaan buri asigan ku qoray beentay miya hayga duubin taas asigan ku qoray ya waan qudbay waxaan iri dhulka waxaan bay dhaba ku leeyahan idin sheegay hadaad wax kale ogtihiin ha ii qarinina 10 sano iyo wax dheer markaan ka soo wareegtaan u maleena 10 sano waa hay muqtaar ya aniga maalintaas laba baraaka inta igu dhisnayd labada qol oo dhagaxa jidka kule horay laba qol kule saddex qol gadaalna laba baraaka igu dhisnayd bay dhaba intaan joogay daba kaayado ma dhisanin intii leen oga tagay haddana hal daba kaay ma dhisanin dhulna ma samaysan markaan inka tago carrada islaamka aan tagaan wixii aan heli kara dhistay ma adinkaan beesadiina ku dhistay ya markaasaan dhismaan beesadiina ma taaban maxaan diidaa marka horta aaway talii saldhig aaw talii qaybtaaba joogee 400 oo shabeellada hoose laga keenay aawo dambe waa jooga intay joogaan meeshan kama muuqdaan aaw taagab wixii ku jiro ya wallahi haye aan shilmigi laga adeeg jarana mahiligi doorashadii basiir ha wal siilagna Soomaali waa arkaysaan shabaabku waa isu soo dhaafis qudbadoodan haddana idin sheega meesha leeyahay caada kibir nin joogaan wareystay hadalkoodana waa dhageystay hadalkooda wuxuu ahaa dhabarka nagaan shabaab mar dambe ma aadi doono macna ayaga dhabarkooda waa xaggaas ka amacna waa fahamteena umalayna wuxuuna aadi doonaa meeshay ukumaha u yaaleen inta kale ukun u taalle ya meeshay ukunta u taalle inta waay annaga nagala bilaabaa bu'aalo waay ilaa jilib waa kala maqaydooda hal shay oo dhibaato dalkan u keenay oo digili mirifle ay keeneen ma jirto burbura dhacay qabiilaa la isugu duulay ayaga lay waday daldadaa lagu duulay ayaga lay keeneen alcalaa la sameeyey ayaga lay waday itixaadaa yimid annaga ma keenin ya ma keenin annaga ayagaa keeneen waa fahamteen maxaakiin bay dhaheen ayaga lay dadka ku dhameeyey annaga ma keenin ya shabaabaa yimid ayagaa haddana keen annagaa nala saara maxaa naloo saaraa ishanadaa laga arkay horta run aan la sheegin beenaa qarsantaadi ishanadaa laga arkay xaggee waay meeshana loogu soo dhuuntay intee waay waxaana loogu soo dhuuntay mar hore maayfuulka ma imaan karaan ma soo dhaafi karaanay ahayd waarikow waa habsaantay dabar inankiis marka ujeeddada maxay tahay anaga maayfuulka hoostiisaba haddii naloo fadhiy burjeedba aanan tegi karin ya gasartaba aanan tegi karin doynuunaya go'doona jidka leemeynana loo gelina ee 30 ku dhimanaysa doofaarka haddii la galo aad soo erisid jid buu leeyahay doofaarka jidkaas haddii geed ka hor yimaado jidkii la hayna macna sidii oo kala noqon
warnimayo geedkii wax walba waqti ay leeyihiin waqtigiis waa soo dhamaaday dadkii keenaa soo wada ayaga keenay xaq muu eriyaano annaga inagu soo eriyeen annagana waa inaan iska celinaa micni ha ayaga keenay may xaq u eriyaan gaalkacyo mariyaan dhaafiyaan garow geeyaan moodiyaan buuraha oo galgala ma geeyaano hargeysa ayada abuurtay hargeysa lafteeda ma geeyaano annaga ma dacwo u qabna ma u qabna wala soo buriyay inta lagu soo eriyay dad yar oo aan maalin iyo laba ku afjari karno ya 4 sano duur nagu hay maxaa keenay dhaha ma sheegi kartaan ya waxa keentay ismaqal la'aan iyo kala dambeyn la'aan iyo ujeedada la'aan dhaaf shacabkan tooran ka hadlaya maanta i bariyad ku reereebi galabta dambe ma joogaan dadkii intay aadeen tuulooyinka amar la'aan ay baxeen basooray doonanayaan qiso kale wax badan aan raacay la jiray aniga qiso kale si loo sii socdo dad waxa tagays caadooyinka xun bay ka mid inaan iska jarno loo baahay hadda taas ma sheegay waa qarina maxaa loo baahay nimayo dadkan anagoo kala way aan iska dhicin qoriyaan haystaan aan iska dhicin ceelashanadii degan shacabkii leenayeen jidadkii go'doomiyeen ya waxa la leeyahay ummadan hal dhameey jidadkooda hal gooy ummadda inteeda kala wadooyinkeeda waa furan yihiin annaga lay go'doone laba ku sheekaysanays aan isxorayno oo waxaan aan la dirirno oo nimayo beledkan aan ka baxno laba ku sheekaysanays ma lihidin dadkan shacabka waxooda ninkii cuna ma noolaanay adinka waaba dhiman laadiin jidka baabuurka u taagantiin hoomayda u taagantiin dabakaayada iridkeeda taagantiin mana dhimanaysaan ilaahay joogay dhahayaan dad waxooda cuno oo fakada hadda waxa la rabaa in la dhinta la rabaa dhimasha diyaar loo yahay nimayo maqaayidi halkaas ay timid inta waa nagala wareegtay ilmahay dhigteen manaas iyo ilaa ilo meeshii biyo lahayd oo dhan waa degeen dhulkan dhan waa soo oodeen way keensadeen caruurtii la qaxayaan dadka baadiyaha markaan wareysanay qofka hadduu ku agmaray hataa kulama hadlaaya liiri waa wareersan soo inaan wareerka ku galna ma intuusan lees bixin in la galo ma aho hadduu nagu lees baxo waa ku kaasa waa calaacalayaan waxay leeyihiin dhaqankii hore waxbaan ka bedelaynaa shacabkii oo la hadlaayaan waxay leeyihiin dhaqankii hore aan ku maamulayna waxbaan ka bedelaynaa waa laga bedelayaa tahdiid ma jiro wax leen kama qaadayo xoolaha waa ku kaasa ogow haddana intay u wareegeen micni waa afuufo hayaan maxaa loo baahan yahay dagaal u diyaar garooba inaan waxaan iska xoreynaan u diyaar garown waxaan beesa aroorin karna waa aroorinay aan la isugu soo noqonin maanta aan aad iyo aad u dadaalno wixii hore aan sameynay aan iska